آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة. السلام عليكم. asbarbardhigi nafsadaada nafsad kale aha qofkaad adiga tahay faraxsano oo ku noolo noloshaada dhabta ah waxa jira sabab uu Ilaahay kaaga dhigay sida tahay ku siiyay waxaad haysato naftaada barbardhigi naf kale mushaarkaaga mid kale gaarigaaga gaari kale moobilkaaga mid kale gurigaaga guri kale caruurtaadana caruur kale jooji isbarbardhiga bilo noloshaada waxaan hubaa inaad noqonaysid qof ku raaxaysta noloshiisa qofkaas oo ugu farxadda badan adduunka midna ogow waxa ugu adag adduunka waa inaad isku daydo inaad noqoto qof kale oo aadan ahayn dadka qaar ayaa u dhimanaya inay rubtaan si ay u kaadaan kuwa modelka ah qaar kalena ayaa jecel inuu miisaanka uu kordho oo buurtaan dad badan ma garanayaan waxay sameynayaan kaliya waxay arkeen cid kale oo sameynaysa waxa la joogaa waqtiga joojin leh darinta waqtigaas oo ku farxi leh sida aad tahay iyo waxaad haysato isbarbardhigid waa cudur kaasoo waxyeeleynaysa xiriirka kala dhaxeeya dadka kale iyo nafsadaada iyo midka kugu muhiimsan xiriirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ka dhigaysaa mid aan ku maadicin nimcadu Ilaahay ku siiyay aamin waxa ugu fudud adduunka aad samayn karto waa inaad qofka tahay ahaatid faraxsano oo ku noolo noloshaada dhabta ah waxa jira sabab uu Ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay ku siiyay waxaad haysato raaligelinta dadka waa arrin aan la gaari karin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh